ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan iyo ilaahay in badan baan bariyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in laga aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 3 nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciidi yare haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidlo ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay 3 nin yidhaahdeen waryaah nin walowba bal wixii aad sileeday camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari 3 nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku bariyay mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalmaha ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkii oo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cid toona waxaa siinay waalidka u horraysi wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofku markuu da' gaadho wuu yaro seexdaa waa soo toosaa waa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islaha mar uuna indhaa kala qaadan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryay wuxuu leeyahay yaa rabbi waad ogtay inaan dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fayd buu yidhi dhagaxii in buu hanqaday laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayoo dhan adaa le kaxayso war igu cayaarinaya intii maalintayduuna shaqaystay intayduuna sii buu leeyahay wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay oo kaase ilaahu waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanuu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka faydi weli lagama wada bixi karo saddexduu xadiisku wa kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyay umaynan sheegine kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diidday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imisa de waa kuus dhan oo lacaga waa xoolo aada u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbashay laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaah war ilaahay ka boqo
oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi illaaha bay ku tidhi eraygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah war hooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidha uu iskaga tegay dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysa in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso ilaahay buu baryey ilaahay camalkaasu ku baryaya ilaahu adiga daraadda inaan zinadaa uga tegay dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayday idan saddexdan nin mid ka mida ducadiisa waxaa lagu aqbalay maxay inuu farjigiisa dhowrtay